أيوة كل دفت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا لهي إلهي ما محل سبحانه وتعالى سود واذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. waxaan u ballansanayn runtii in aan soo gallo oo aan ka faa'iidaysano sheekha barakaysan sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir. walaalahay hameenkii dhoweyd aad baan uga cudur daaranaynaa, fursaddii noo suuro geli weyday caawa ayaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano sheekheena. sheekh cabdiraxmaan bashiir waa ghaniyun can الtacriif, waad ka dharagsan tihiin. waa mufakir islaami ah, qaanuuni ah, aad wada taqaanaan, soomaali ah. caalamkana maanta runtii nimanka mufakiriinta ahee wax laga weydiiyo, haddii ay siyaasad tahay, haddii ay bulsho tahay, haddii ay fiqi tahay, haddii ay diin tahay, meelo badan maxaan ku dhahdayey lagaga faa'iidaysan karo aqoontiisa iyo cilmiga uu ururiyey intaas. waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala bal muddo ka yar saacad ku dhow in aan caawa dhowr meel aan isku marno oo aan ka waraysano sheekha biidni illahi alkariim. sidaad ciwaanka kusoo aragteen, waxaa noo qorshaysnayd runtii in aan hameenkii dhoweyd ciwaanka aad aragteen aan ka hadalno tagyiirka bisha ramadaan iyo tagyiirka geeska africa. maanta waxaan rabnaa si xooga inaan isku dul taagna haddii uu alla yidhaahdo khitaabka islaamiga ah, khitaabka islaamiga yacna muxaadaraadka iyo lagjarka iyo baraaruga islaamka iyo qaabka wax loo soo gudbinayo ayaan rabnaa hadduu alla yidhaahdo in aan iskor taagno. marka ila soo dhoweeya inta aanan mawduuca u gelin ama su-aalaha aan sheekha usoo bandhigin, ila soo dhoweeya sheekheenna sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir oo culummada waaweyn ee soomaaliyeed ka mid ah mufakiriinta. sheekh soo dhowow, aad baan kuu soo dhoweynaya, aad baan ugu faraxsanahay fursaddan. tafadal mashkuuran ma'juuran. اوكي، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وحان أد إلهي أمها النقيا تبارك وتعالى ما هذا نسوق بكريم. وحان كلون أمها النقيا ولالكي شيخ أحمد جوهر أو برنامج كان دادهينيا. وحان كلون أمها النقيا ولالكي شروع أو سكان حرية سي تكنيكال أو هذا قرحضن. dadweynahan dhageysanayana aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantood. waan dhowahay walaalkay ustaad axmed jawhari amba jawhar nibasoo yaqaano, reer koonfur jawhari bay u bixiyeen, annaguse jawhar baan u naqaanay markii aan xaafadda lixaad oo kubadda ku ciyaari jiray. marka insha allah waan dhowahay walaalkay. jazaaka allah khayr. jazaaka allahu khayran sheekh cabdiraxmaan xabiibi, ilaahay ha ku dhowro. sheekhaygii waxaan rabaa inta aanan u gelin mawduuca lubul mawduuc in aan soo kormarno insha allahu tacaala caalamka islaamiga gaar ahaan geeska africa. waxaan walaalaha xasuusinayaa in ay dib ugu laamaan ramadaankii hore ama sanadkii hore lagjaro aad u cajiib badan ayuu sheekhu maaragtay bixiyey. ilaa haddana waxaan aad uga codsanayaa dadka in ay boggiisa ay like dhahaan oo ay ku xidhmaan. ilaa hadda lagjaradaasuu wadaa, caqliga dhisaya, nafta dhisaya, fahamka dhisaya, qofka muslimka la rabo siduu u fikiri lahaa. marka insha allahu tacaala pagekan maxaan ku dhahday islam jabuutina aad ugu xidhmo uga faa'iidaysta wax badan. ilaahay khayra ka siiyo walaalkeen sharwac, aad buu usoo bandhigaa. marka sheekhaygii waxaan rabaa in aan wax kaa weydiiyo xaaladdii geeska africa. inta aanan geeska africa u gelin toos, haddii aad noo kor mari karto caalamulislaami maanta maxaa ka dhacaya bisha ramadaan, maxaa isbeddel la dhacay. marka gaar ahaan waxaan rabaa marka dib inaan ugu soo noqonno geeska africa haddii alla yidhaahdo. marka maxaad nala wadaagaysaa sheekh, jazaaka allahu khayran ka caam ahaan. tafadal mashkuuran ma'juur. aad baad u mahadsan tahay walaalkay. su-aashu waa su-aal u baahan mawduuc dhan in laga galo. adduunka muslimku halkuu u socdaa,
وحاجر برنامج أنو بحين كرنو العالم الإسلامي ما بعد كورونا إلى أين أدونك جزاك إسلامكو الله خير. كورونا دبلي الكو آدي دونا إن شاء الله تعالى marka taas mar baan ka sheekaysan doonaa laakiin waxaad ogaataa adduunka muslimka dadkii laaqayay dhibaato weyn baa ku dhacday saddex qolada koobaad waxa weeyaan waddanka sacuudiga oo aad u laaqayay muslimiinta dhaqaalaha uu ka burburay burbur weliba lixaadla ayaa ku dhacay yaman wuxuu u geystay dhibaato wuxuu ku celiyey muwaayanaashkii qurul wusta waxa uu u geystay dhibaato waddanka liibiya wuxuu u geystay suuriya adduunka oo dhan dhibaato weyn buu ka geystay weliba sacuudiga ma ahayn dadkii hore waa labada nina iminka xakumays dhalay salmaan iyo inankiisa marka dhibaatooyin halisa ayay dalka ummadda islaamka u geysteen laakiin ilaahay uu ka argooyey tabaaraka wa tacaala waxaa maanta la sheegay 200 milyaar oo dollar oo amaaha inuu sacuudigu doonayo waxaa kale oo la sheegay inuu saanskii iyo gaaskii dhibaato badan uu ka taagan yahay waxaa kale oo la sheegay cumradii iyo xajkii la joojiyey dhibaato dhaqaale oo lixaadla inay u geysatay waxaa kale oo la sheegay inuu Trump ugu hadiday iyo dowladda Mareykanku inay ka soo qaadan doonaan ciidamadii ilaalinayeen in la goyn doono cilaaqaadkii istiraatiijiga u dhaxeeyay Sacuudiga iyo dalkani maaragtay Mareykanka oo Mareykanku uu oran jiray waa beer aan leeyahay oo ilaashada oo wax kale oo faa'iido leeyahay ma jiro waxaa kale oo dhibaato halis ay soo gaadhay dalkii Imaaraadka oo aad ogtihiin inuu lacag ka doonayay Morocco iyo dowlado kale oo ka hooseeya Imaaraadkii oo ku socda mashaakil aad u fara badan magaalada Dubai waxa la sheegayaa inay iflaasi doonto 15 sano soo socota inay baabi'i doonto taariikhda ka bixi doonto iyadoo taariikhda waxay ka saartay Masar oo ay ku bixisay 60 milyan in la fashiliyo tawradii la dilina madaxweynihii hore ee maaragtay madaniga ahaa ee ummaddu ay dooratay ilaahay u naxariistay Maxamed Mursi waxa Masar ka socda ka dambeysay geeska Afrika waxa ka dhacaya haday Djibouti tahay haday wuxuu ku hadiday inuu Djibouti ku celin doono muwaayanaashkii waxay ku hadideen inay maaragtay geeska Afrika oo dhaqabsan doonaan Yaman inay kala gooyaan iyo kala dhibaatooyin fara badan baa ku socda ninkii ay gargaarayeen Xiftar isagana Liibiya dib u socdaa markaasi waxa adkaanaysa dowladdii sharciga ahayd dowladdii Turkiga oo noqotay waddanka labaad ee ugu dhaqaale badan imika wadannada maxaan ku dhahdaa Yurub waddanka toddobaadna ku soo socota caalamka oo dhan iyaduna waa wax wanaagsan marka waxaad halkaa ka dareemaysaa dadkii xaqa raacayna inay dib u soo noqonayaan dadkii baadilkuna inay burburayaan arrintaasi waa mawduuc aan uga hadli doono si camiiq ah hadduu ilaahay yidhaahdo corona waxay fashishay tawradihii muddaadka ahaa ee ka soo horjeeday rabitaanka shucuubta waxayna soo saartay xaqiiqada iyo kartoonnimada iyo wax la'aanta ay yihiin dowladahan maalayacniga ee caalamul islaami ka taliya marka insha Allah caalamul islaami iyo xukumaa sidee loo xukumaa iyo doortaa sidee loo doortaa halkee lagu doortaa waxa soo dhan waa mawduuc ballaaran oo u baahan inaan si wanaagsan uga hadalno markayga insha Allah waa maasantahay walaalkay Ahmed aad baad u baahantahay sheekhaygii jazakallahu khayran qiraa'a cajiiba weeye dabcan waxaan rabnaa in sidaa tilmaantay mawduuc gaara hadduu la yidhaahdo aan ka samayno maadaa bacda corona caalamul islaami dabcan arrimahan hadda aad tilmaantayna aan iyada oo daqiiqa aan ku soo qaadan doono biidnillahi alkariim sheekhaygii waxaan u imaanayaa geeska afrika dhowaan waxaan ognahay inta ay bisha ramadaan bilaamin in ay ka da'een roobab tii aan ugu baaqnay dadku in ay maaragtay ka qayb qaataan tabarucaadka ilaa haddana socoto dadka waan ugu yeedhaynaa in ay dadka gargaaraan dhibaataysan ama ku tabaaloobay aan idhaahdo dhibaatooyinka dabiicaddu ay waddo ee maaragtay ay soo food saaray xaaladda haddaanu imaado Djibouti xaaladda Djibouti sheekh roobka hortii corona ayaa dhacay sida caalamkaba corona uu u karantiil gareeyay dadka oo dhan guryaha loo gala leeyahay waxaan rabaa inaad sheekh iskugu kay qabato bal caalamkan Afrika ee isagu raba in uu dabagalo uu raaco caalamka galbeedka ee hore u maray caalamka galbeedku sidaad ogtahay waxay leeyihiin wax la yidhahdo social security yani waxaa jirta cashuuraad la iska qaado waxaa jirta wasaarada ka shaqeeya bulshada waxaa jirta dadka aanan howlgabeenka ah iyo dadka aan shaqo haysanin qaab loo tamwiiliyo ama loo gargaaro
oo loogu sameeyo in ay nolol maalmoodkooda ay standardka caadiga ay ku jiri karaan oo aynan hoos uga dhici karin amaba aynan u noqon karin qof bilaa guri ah qof bilaa maxaan ku dhahdaa haddii kale dee noloshu ma yeelateen maxaan ku dhahdaa nolol socoto oo maaragtay meel fog la hiigsanayo marka caalamka africa sistemyadaas inta badan ma laha gaar ahaan geeskeena africa marka laga hadlo baynama islaamku in la tamwiiliyo dabcan adaa noo sheegi doona sheekh nooga warrami doona cumar ibnu khataab radia allahu canhu in uu hameenkii intuu baxo uu ka fikirayey dabcan keebaa maanta gaajaysan keebaa maaragtay aan raashin cunin keebaa u baahan baytulmaalka in maaragtay laga quudiyo oo wax looga qoro marka sheekhaygii marka la yidhi dadkii shaqaysanayay ee muruqmaalka ahaa ee subaxdii kalahaya yoomiyaha ku kalahaya guryaha fadhiya ha ka soo bixina jabuuti keliya maaha dabcan waa dal kasta oo systemka reer galbeedku uu u raacay iyaguna qaatay marka maxay ka raaceen systemka galbeedka dadkooga waxbay u ballan qaadeen inay wax u sameeyaan kuweena geeska africa maxay sameeyeen maanta dhibaatadu halkay maraysaa sheekh tafadal mashkuura majuura horta waad maxaase xal u noqon karaya walaalkii waad mahadsan tahay anigu waan kala saarsaari oo isku mid maaha waddanadani jabuuti waxay boqolkiiba boqol waxay isku dayday inay iska dhigto sida yurubta iyo maraykanka iyo canada iyo australia marka iyo khaliijka dadka waxay xeraysay boqolkiiba boqol marka jabuuti iyadu waa xaalad gaar ah haddaan etoobiya tagno iyadu dadka ma xirin leanno boqolkiiba 70 ilaa 75 dadka ethoobiyankii waxay ka shaqeeyaan waa muruqmaal ee maaha dad dowlad u shaqeeya amba sharikaad u shaqa taga somaliland iyaduna waa sidaa iyaduna ma ayna qaadan dadka inay wada xerayso maxaa yeelay boqolkiiba 90 dadku waa muruqmaal kadalika jamhuuriyadda soomaaliya ee federaalkuna sidaa ma ay qaadan iyo gobollada kale ee soo hoos yimaadaba boqolkiiba waxaan ku oran karaa 90 iyakuna waa muruqmaal ee maaha dad dowlad u shaqeeya amba sharikaad waaweyn u shaqa taga sidaa daraaddeed koonfurta soomaaliyana lagama qaadan qaraarkaas soomaaliya maaragtay qaar baa waqooyi soomaaliya yidhaahda qaarna somaliland labada waan ixtiraamaya anigu somalilandna iyaduna ma aynan qaadan qaraarka ah inaa maaragtay dadka la wada xereeyo weliba somaliland waxay ku ammaanan tahay markii jaadka la joojinayey waxaa lagu joojiyey si maskax iyo khibrad ay ku jirto waxaa loo yeedhay labadii shirkadoodii ugu waaweyneyd ee jaadka joojinayay jaadka keenisay waa lala tashaday dumarkii iyo raggii jaadka iibinayay baa lala tashaday iyaka ayay ka soo baxday inay dowladda waafaqaan ilaa iyo ciidda inay joojiyaan marka iyaduna waxay ahayd tallaabo aad u qurux badan oo ay ku ammaanan yihiin laakiin jabuuti laba broblem baa ka jira broblemka koobaadi waxa weeye qaraar baa dusha ka yimiday dadka aanan lagala tashan loona yeedhin waxna laga weydiin hadday tahay culumo hadday tahay culummada waa loo khudbadeeyo una sidaa yeela masaajidda xidhow meedho qaraar baa lagu xidhay masaajidda lama weydiin lagama talagelin maxaan ku idhaahdaa dadka kaleeto ee bayca mushtarka ah looma yeedhin khubarada looma yeedhin aqoonyahanka civil society-ga amba society civilka mujtamaca rayidka ah bulshada rayidka ah looma yeedhin ninna looma yeedhin mucaarad looma yeedhin muxaafid kale oo rbb ka baxsan looma yeedhin xataa emp qolada la yidhahda ee dowladda gacansaarka la leh ee xisbiyada la socda looma yeedhin waxaas oo dhan lama tashan systemka unbaa dusha unbay kasoo dhaadhacday qaraaraad fawqiya taasi waa midda koowaad weeye midda labaad lagama tashan war waxaan marka aan qabanno een samayno maxaa ka dhalan kara gaajada dhalan karta intee leeg tahay mashaakilka iyadana laysma weydiine amarka unbaa la qaatay waxaasi waa sida ay yeelaan dowladaha loo yaqaano shumuuliya ku fikra dictatorku amba leadershipka dictatorku siduu u fikro weeyaan isaga ayaa xalka haya ma uriikum ilaa ma ara anu waxaan arkaya unbaa socon karaya marka taasi waxa weeyaan jabuuti way ka dhex muuqataa maxaan ku idhaahdaa geeska africa habkii ula dhaqantay ethiopia oo kale markaad u fiirsatid waa la xadeeyey waa la dagaalamay se wax loo kala ibsanayay waa la sameeyey laakiin dadka lama xerayn karayana dadkani risiqoogii qofna gacanta uguma hayo marka dadku risiqooga iyakaa dooranaya iyakaa raadcaynaya iyakaa daba socda
marka taas waa midda weeye midda kaleeto ee Djibouti problemku ku adagay waxa weeyaan Djibouti maaha meel lacag u baahan Djibouti xaqiiqada waxa weeyaan lacag aan caadi ahayn baa Djibouti dhex taala waa marka koobaad Djibouti waxaa jirta dikado la yiraahdo Port de Djibouti oo dawladda Djibouti ay sheegtay maalin dhaweyto in ay taswiiraha sidaad ku arkaysiin imika matalan waxaad arki kartaa xaafad la yiraahdo Ridi Seylac waa dariiq waaweyn oo u dhaxeeya xaafadda shanaad iyo xaafadda lixaad dhex mara dariiqaasi wuxuu noqday wax baaba'ay oo hadda ta jirin oo dadkii ooyay oo qurun buu noqday dariiqa dhex mara maaragtay Ridi Ciisa la yiraahdo ee dhex mara miskidaraa dhinaca kale ka mara dariiqaasi waa baaba'ay dadku waxay dul fadhiyaan diimis iyo qurun bay dul fadhiyaan haddaad u imatid dariiqii kartoon dhex marayay waa baaba'ay haddaad u imatid maxaan ku dhahdaa yani balbala waad arkay way tirtirantay marka Djibouti xoolaha yaalana waa xoolo aan caadi ahayn Ethiopia laga samaxay 2 bilood wixii ay dhoofsanaysay inay bilaash ku marsato Djibouti laakiin dadkii reer Djibouti muxuu u qabtay boork amba dikada Djibouti oo ay soo gasho milyaar faran yani haddaan doono milyaar dollar baa oran karnaa marka dikadaha baa loo yaqaanaa dikadaha Djibouti waa taqaanaa sharikadan la yiraahdo sharikada Koranku waa sharikad khaas oo shaqaysata oo ay isla leeyihiin madaxweynaha iyo qof ay qaraabo yihiin ay isla leeyihiin oo mar dhaweyto 100 milyan baan bixiyay iyo 10 milyan baan bixiyay 5 milyan baan bixiyay ku shaqeeya laakiin waa meel lacagta maasha oo iyaduna milyaaro lacaga maasha weeyaan halka waxa ku dheer meesha rado airportka oo uu ka nool yahay nin madaxweynaha صدق وياهي أو أفريقيا أو كيمد كوت ديفوار أو قبل قبا أو دكذا لك إلى لينجري أو عيال سوقها يا مليار كسمية أو كوت ديفوار كي مركز يدنا أيربور كي باجرا وحكلو جرا أيربور كم كلا ما دو حاجر جيبوتي تيليكوم أو يدنا مال حول بدن أي تالو أو لقى ماله حولها يا جرتا iyadana xoolihii la maalayay laga maalayay meeshaas iyadana khudda loo dhigay oo planning ba u yaala oo waxay ku hoyataa Harmuus bay ku hoyataa waxa jira meesha loo yaqaano cashuuraha noocyada kala duwan ee cashuuraha Djibouti oo lacaga fiican ay dalka ka soo galaan iyadana waad ogtahay waxa jira ciidamada ajnabiga ee dalka jooga oo China-hu uu ku fadhiyo wadankan walaal safiir inoo ah uu difaacay inuu China-hu noo yimaado uu guumeysto uu adoonsado uu بهن مارتن وكلا ما سمايو ونلاشوا نجار بابيو أو ذلك قاطع وحضاني سمايو طبعاً بجوكتا طبعاً وعيدنا شركة يمدي باري وحول بابا لرجبوتي ورك ما هيان يدنا لعكتها سهلك أي مرتو لرجبوتي وإنا لو يجيو وحاجرة جرجار أي بحيان وضمنا ذا خليجكو ونلقصيو إسكربتاجني سعودي ده ويضمن مليون oo ciidamadu ay qaataan marka taasina waxay ka dhaxaysaa ciidanka maamulkiisa iyo madaxweynaha iyo ka dhaxaysaa waxa jira waxa dhacdo in lacag weyn ay Djibouti ku qaadato waxa dhacdo la dagaalanka burcadbadeedka in badda oo iyaduna aan caadi ahayn iyo jirta marka waxaas oo dhan oo lacaga amba xoolo ah waxay u baahan tahay inaan garanno iyaduna halkeebay iyaduna martaa waxa kale oo jirta akhi fillah waxa intaas inoo dheer waxa jira sharikad la yiraahdo sharikada dhoofinta milixdu waa resource maartay waa wax dabiici ilaahay Djibouti si wala milix fiican baa taala oo xoog loo goro ilaahay u naxariistay Ali Geelle iyo Ismaaciil Umar Geelle ayaa ka wada shaqaysta iyadana milyaara ka soo gala waxa jira waxyaalooyin fara badan oo Djibouti ka socda oo la yiraahdo blanchissement baa jira cadaynta lacagta حاجرة بانك هذا كاك وإمك وذا الرين لا يدهضو والعكتي وطن كتالي يمانتا أو مليار هيد وعلي عبد الله وهري أصدر إنتو سكتوا جيبا كدي مركو بحصدين على صوش شبو أو مليار أو سوق يتا ودوكتي الماشى وبانك كاك وكدي سيهاي يجوريجا مارت اللي كذي وحاس أردن هذا نسكو جينو وحا جيبوتي تالا لعق عن عدد الحين لعقت أن عدد كلهين هدي شعبك جيبوتي لو قيبيو قف فقيرة مجرى محايا لشعبك جيبوتي وحكونوا لي هاي صدح يلا باطن
kun oo kilomitir oo isku soo wareega waa wadan aad u yar shicibka Djibouti waxaa lagu qadaraa 500 600 oo kun ilaa 1 milyan xaqiiqadu malyan ma gaadhno runtu waa sida been inaad ku sheegna maaha malyan waan ka yarnahay dadka reer Djibouti ee intaa ka yar inay gaajoodaan ay baahdaan oo waxaas oo lacagana ay dalka taalo waa xaraan weeyaan marka Djibouti markaan ka hadlayno problemka ma haysta reer Djibouti markaan ka imaado dawladda iyo nidaamka reer Djibouti maxaa haysta mushkiladda dadka reer Djibouti haystay maxay tahay anu waxaan ku soo koobayaa problemka in haysta haddaan reer Djibouti nahay waa afar arrimood su'aasha koobaadi waxa weeyaan reer Djibouti waxaa ka maqan damiirka wadaninimada conscience national ba ka maqan qofku wadani maaha qofku wuxuu leeyahay wax raado arier pays buu leeyahay qof waloo reer Djibouti wuxuu ka fikirayaa tani hadday baabado meel aad tagtid baa jirtaa loo yacda dabadeeda wadan baad ku leedahay galiilo dabadeeda wadan baad ku leedahay qalaafid dabadeeda wadan baad ku leedahay qofku wuxuu u fikirayaa in ay meeshani tahay funduq waa maxay waa hotel la iskugu yimiday ilaahay u naxariistay xasan guuleedna wuxuu yiri waa pays de rencontre waa meel lagu kulmo meel la leeyahay ma aha marka conscience-kii damiirkii wadaniga ahaa dadka reer Djibouti ma leh reer Djibouti ma caroodaan reer Djibouti in badani ma ooyaan reer Djibouti in badani ma argagaxaan markay dalkooga arkaan marka taasi waa mid weeye midda labaad ee ummadeena ka maqan aan ku canaanay reer Djibouti waxa weeyaan waxa ka maqan reer Djibouti in la yiraahdo al-intimaa al-watani qofku inuu dalkiisa ku abtirsado waxa weeyaan reer Djibouti waxa dad fara badan madaxooga waxa ku jira Djibouti iyaale qaar baa dadka u sheegtay Djibouti annakaale Djibouti ininku maleedihiin haddaad reer hebel tihiin reer Djibouti maaha laakiin reer hebel hadday xitaa ku dhashaan Djibouti dibadeeda iyo kaale Djibouti waa loo dhashaa waa lagu dhashaa dadka waxa lagu akhriyaa wax aanan dawladda moderniga aqbali karin markaasi fikradaasi waa fikrad kharaaba waa fikrad abuuraysa laba qof oo reer Djibouti oo walaala oo jaara mana suurtagali karayso in la yiraahdo Djibouti anaale adigu ma lihid Djibouti ee Canada waddankan joogno waxa horumar gaarsiinaya waxa weeye Ahmed wasiir kari qoyska iyo bulshada shalay toranaha wasiirka immigrationka oo isaga oo maxaan radaa 16 jira Canada yimiday maanta wuxuu haystaa nationalka waxa uu yahay wadani waa Canadian dawladda modernigu saasay u fikiraysaa Mareykanka ilhaan waxay la dagaalantaa Trump ay ka tiraahdaa khaa'in baa tahay kama cabsooto iyadoo oo shalay toole xeriyooyinka qaxootiga Kenya ka imatay marka qofka bini aadankii Djiboutianiteegu maxay tahay waa in la xadido weeyaan qofka Djiboutiangi waa ayo man huwa al-Djiboutiyu qofka Djiboutianiteegu waxa weeyaan waa qof kasti oo nationaliteega Djibouti haysta weeyaan cirka ha ka yimaado dhulka ha ka yimaado waa meel dadka bini aadankii inay jeclaadaan ay waajib tahay arinta saddexaad Djibouti waxa weeyaan waa meel yaab leh Djibouti waa meel dadka korisa weeyaan waa meel agoonta korisa weeyaan waa meel miskiinka qof ka dhigta weeyaan waa meel qaxootiga bini aadan ka dhigta weeyaan waa meel dadnimada lagu sameeyo Djibouti laakiin mahadnaq Djibouti ma hesho maxay Djibouti mahadnaq u heli laadahay waxa maqan conscience-ka waa maqan damiirka arinta saddexaad reer Djibouti waa taa weeyaan arinta ugu dambaysa ikhwaani fillah dad fara badan oo reer Djibouti xaq way la jiraan laakiin way cabsoodaan su'aashu waxa weeyaan maxaa laga cabsoodaa waxa laga cabsoodaa wixii ku dhacay dadkii kale hadlay yaa laga cabsoodaa shaqa laga eriyay dad fara badan baasaboorkii baa laga qaaday naastigii baa laga qaaday waxa laga qaaday maxaan ku raahdaa waxa dhada waa la dilay waa la laayay maanta waxa xiran dhalinyar aan tiro lahayn fuad baa xiran oo dulmiga diiday muxuu u xiran yahay dulmigu diiday muxuu u xiran yahay dad baa leh khaa'in weeyaan adaa khaa'ina isagu khaa'in maaha anta al-khaa'in maxaa khaa'in ka dhigay 10 sano iyo laba xidid ku dul gaboobeen waxaan anigu aqaanaa nin halkan la jooga ya oo wadaad ah oo ma aragtay reer Djibouti oo ciidanka maalin quraata la qoray isaga iyo ninka la yiraahdo Maxamed ee ciidanka haysta ilaalada madaxtooyada ninkaasi maanta waa colonel buuxa ninkaasina wuxuu Djibouti kaga soo baxsaday isagoo kabral sheefa yani aqligaasi ha ku kayimide inuu laba alif la qaado kii ay wada qaadeen maalin isaguna uu noqdo halka uu gaaro dulmiga halka laga keenay
halkanuu maanta nala jooga Canada miskiin weeyaan uu soo baxsaday ciyaalkiisii buu la soo orday naftiisii buu la soo orday inaan kala jiro oo booliisa oo ninka ka horreeyay kana tacliin badan ninkani oo maanta wali hada juudan chef aan dhaafin waxaa jira rag fara badan oo ciidanka galoomihi ay ka dhaateen galoontii halkan taalay ay halkan taalo oo noqday deformé wax dhada afka Faransiiska kala qalloocsamay say u socdeen oo naxdan oo wajigoogu uu googo'ay dadkaasi waxaa lala qaaday ciidanka ragga maanta xidiguhu ay qariyeen iyo biladuhu ay qariyeen waxaasi waxa weeyaan waa dulmi weeyaan in uu maaragtay ratareed la geliyo shaqada laga joojiyo nin dhalinyaro ah oo dhacdo 5 sano shaqaysay 20 sano shaqaysay waa socotay laakiin General Sikri oo ilaa maanta joogo uuna soconayn dadku waxaan waxay arkayaan waa dulmi weeyaan marka waxaa jira adduunkan aan maanta ku noolahay ee la yiraahdo dunidani dulmigu buuxiyay waxaa jira dad la yiraahdo dad maaragtay samada u sii socda oo dhargaya iyo dad gaajada ku socda oo dhulka ku namaya Djibouti labada shay baa ka jira Djibouti waxaa jira laba qof oo Djibouti ayaa jira labada qof ee Djiboutiyaanki waxa weeyaan qof dhargaya qof muxuu u dhargaya laba shay waxa uu u dhow yahay madaxweynaha ambase madaxweynuhu shacabka u tuma aad si siyaada ah oo waaliyo u tuma markaas baa la sii daliciya dadina xaq waxay yeesheen damiir way hadleen gaaja lagu dilaa dadku iminka waxaan ma bilaamin mar hore bilaamatay yani anu waxaan garanayaa ninkan la yiraahdo مثلا hogaamiyaha xisbiga maartay PRD ee la yiraahdo Daahir Ahmed Farax oo dadku yaqaanaan daaf waxa weeyaan waxa laga eriyay shaqadiisii waa laga eriyay waa hadana waxa laga eriyay iskool yar buu furay iskool yar oo Suutiyaan iyo furay waa loogu yimid waa laga eriyay hadana uu socday joornaal yar buu soo saaray oo waxa waa laga baabiyay hadana uu socday guri buu galay inanku guriga la galay oo warshada kooranta ka shaqeynayay iyada hadda aqal ka saari weeyay waxa weeyaan adigana noloshaadu halis bigalay aqalkii baa laga saaray waa laga soo daba socday xaaskiisu ka shaqeyn jirtay meesha lacagta lagu kaydiyo trezor loo yaqaano iyo shaqadii laga eriyay waxa laga eriyay walaalihii ba halis la galiyay qofka bini aadam marka saa loo galo markuu uu socday uu dadkii waxba sii waayeen uu gabood ku googo'ay uu hadeeto meel uu baxo waayo Belgium tagayna qaad dhaadhaanina waxay ku leeyihiin oo muxuu Belgium ka doonay muu fadhiyo oo muxuu baxsaday markaas waxa weeyaan de mad garab joogsatid mad xoolasiisid mad hoosta uga dhiibtid mad noolaysid maartay waxaas oo dhan waxa keenaya waxa weeyaan ikhwaani fillah wa dad isdaawanaya iyo koo la cunayo oo la leynayo iyo daawanaya Maxamed Daahir Rooble ninka la dhahdo ee ku nool maanta dalka Turkiga waraaqadihii inta laga qaaday iyaa la dili gaaday saddex nin baa dili gaaday waxay moodaan dadku inaan la socon waanigi sheegay magacdooda waan haynaa qof baanu haynaa saddexda ninba waa la yaqaanaa nin waa nin jaamicadda la dhigan jiray oo la fadhin jiray imaaraadka oo jaamicadda imaaraadka kala soo baxay oo ay saaxiib ahaayeen oo guri ay wada seexanayeen markaa bay garaaceen ay dhiigga ku joojiyeen ay geliyeen isagoo sooma ramadaankii 50 darajo meel ka hooseysa dhididkiiba biyo noqday uu dhiman gaaray markaa bay dhahdeen ma aan moodin inuu qoladaa yahay qoladaa baan moodaynay waxaan u dileen ma laba Djiboutiyan jira ma laba qabiil baa jirta ninkaasi kadibna maanta ubadkiisii baa laga tabatagay digaadig baa laga dhigay ubadkiisii waa bilaa waraaqo xaaskiisii oo uu maartay Ali Sultan oo ku ratarateeyay juudan chef oo Djibouti oo laga yaqaano oo la lahaan jiray marxuumkii kale dhintay meesha la dhahdo Muqbasa Central oo qof reer Djibouti oo garan uu jiro ayaa maanta waraaqadihii loo diiday dulmiga inta leeg wuxuu ka dhacayaa waa meel 23,000 oo kiiloomitir oo daawanayno khadar ninka la dhahdo oo jaamicadda ka ah professor oo ciyaalka madaxweynaha aqalka ugu dhigi jiray oo la yaqaano oo ah mathematician ninka Djibouti ragga ugu yaqaano maadka ah iyaa markuu xaqa sheegay iyaa shaqadiisii laga eliyay waa bilaa mishaaro ilaa maanta nin baa halkan la jooga engineer oo maaragtay isaguna professor jaamicadda ka aha oo laga soo eriyay لأنه وحويري إن بدن ما أفراد ما قادي كرنا إسماعيل عمر جل وإنه في لنتهي ما أنت هالك لو قحوتك وياي عيال كيسي ما أركي كرو جيبوتي بكجا هرين يكون هالكاسي جوجان وحويان باسبور كيجي أون دراي أون إدواريسو جديدية غير جيبوتي بان هاي هو يان لا هاي ولا لان لا هاي دل كيجي بان جعلها هنا كل عام إياه الله يسكقاتي لبدي يجا قادتنا ويجوهر ديتان آخر الجيران بك
ilaaha u naxariisto safiirkii iyo ninkii muxaasibku ku xigeenkiisiiba okay waxaas oo dhan reer Djibouti way daawanayaan waxa ma aha dhacaya sida loo galay waxaan ognahay Umar ninka la dhahdo amba dambas weyn loo yaqaano sida loo galay baan garanaynaa dadka reer Djibouti ee halgamaya ee siyaasiyiinta ah sida loo galay baan garanaynaa hadday yihiin ma aragtay Ahmed Diini rahimahullah waxa la galay heshiiskii la galay waa laga baxay kadibna muruga dishay aadan roobla cawaale muruga dishay muun bahdoon farax muruga dishay ismaaciil geedi xareed muruga dishay Sulaymaan Farax Loodoon muruga haysata waxa weeyaan dalkan iyo dadkan iyo dhulkan waxa dhacday nin baa sheegtay nin baa yiri anaa leh la ilama leh qofna ilama leh la ilama yeelan karo qofka yiraahdo anaa kula leh qoortan ka goyni amba waxaan ku sameyn al-mawt al-batii waxa loo yaqaan geerida qoyar socodka isagoo waris ku hayn buu iska dhimanaya dadku waxaan alle hebel baa dhintay way soo aasayaan nacam markaas waxa weeyaan kuwa kaleetay ag joogana hadday qosli waayaan ay sacabka tumi waayaan waxa weeyaan waxa ku dhacay garanayaan marka mid jecel ma jiro laakiin naf baa haysa naf bay sacabka u tumayaan naf bay u qoslayaan marka waa inaan noqono dad xora dad oran kara no la maya oran kara weeyaan markaas waxaan rabaa inay dhahdo war problemka Djibouti yaalay waa thunaa'i waa labo waa dawlad iyo dad dawladnimadii qaadan kari la dawladda adaale dhulka adaale dalka adaale ninkana wuxuu ku leeyahay sharikad weeyaan nin reer Soomaaliya iyo barnaamij fiican ka sameeyay Djibouti ma sharikad qoys leeyahay mise waa dal dad leeyihiin laakiin reer Djibouti waxa wali ma sameeyay Djibouti ma sharikad qoys leeyahay mise waa dal dad leeyahay Djibouti ma sharikad nin leeyahay mise waa dal dad leeyihiin Djibouti ma sharikad xaafad ah oo laba ruux ay yeesheen ba maanta waxaad ogtihiin madaxweynaha xaaskiisu waanigi nii sheegay dhowr iyo 20 qalbiga si talaabaysa oo bandarada ah iyo daara ah iyo ma aragtay vilayaal qusuur baa la dhisaya qusuurtu waa maxay waa chateau qusuur baa la dhisaya shanta ciyaal ee dhashay nin walba qasri bay u dhashay qasri bay u dhistay iyaduna qasrul qusuur bay dhisteen qusuur waaweyn bay dhisteen sida ay Saddam Hussein iyo bin Ali waxaan xasuustaa Leila Tarabulsi iyo bin Ali umar xasuustaa ayu waxaan dalkani dadku waxay u baahan yihiin inay xuruubaan inay waxba hay waxaad u garanaysaa qof hadduu hadlo qof yaroo bini aadan hadduu hadlo nafta ka baxaysa haddii laga hadlo dalka inuu burburayo waxay u bedelayaan dagaalka attack personnel ina yar baa shalay toola hadlayay oo dhalinyaro ah oo reer Canada ah wadanku ka hadlayay dhibaatooyinku ka hadlayay waa la soo weeraray ma atay waxa tahay waxa aabaha hooyadaaba waxa ahayd maxaa aabe iyo hooye iyo adeer iyo abti iyo awow iyo mucooy iyo maxaad ka doodoni waxa weeyaan waa mawduuc objective al-watan waxa laga hadlayaa pays waxa laga hadlayaa dhul iyo dad iyo dal waxa laga hadlayaa dan iyo diin lagama hadlayo khuraafaad lagama hadlayo been lagama hadlayo attack personnel Ismaaciil Umar Geele aqalkiisa waxa yaala annakaale marka waa in aqligiisa galiyo ma haysagu male dad baale maya hagu ka keenay min ayna lahu hada Umar bin Khattab wuxuu oran jiray min ayna laka hada halkeed waxaan ka keentay waa question waa su'aal waa in la isbaaro halkeed ka keentay marka waxaan umadaale dadkaale marka reer Djibouti dal iyo dawlad ma jirto laakiin waxaa jira qof dawladda qaatay dawladdii jeebka ku ritay jeebka markuu ku ritay wuxuu ku leeyahay kaalayga la soo baxa oo isla la soo baxa waxaan samaystay ciidan la yiraahdo ilaalada madaxtooyada haye waa 1200 qof koow waxaan siiyaa mishaar ka badan booliska iyo jandaranka iyo militaarka waxay ilaaliyaan kursigayga waxay ilaaliyaan caa'iladayda isoo gaadha haddaad kartiin jaad baad cuntaan nafta inaga baxsan waa taahdaan shwamera wadatihiin nafta inaga bixi barasaas baad madaxa inaga tabay bal kaalay isoo gaadha ana amlik wa ana ahkum ana leh ana xukuma inagu xubtihiin wuxuu ku leeyahay marka qaarkood mucaaradka aan doonayo waa ka sida u eg waa qofka ila taliya oo demokrasiya ku nahay mucaaradka wuxuu ku leeyahay waa qofka ila taliya waxaad qabatay ma fiicne waxaan baad qaban lahayd waxa sida ka oranay waa kursiyada waxa ka oranay waa aada sheekhiyo waxa ku oranaya waa kuwa kula taliya laakiin anagu waxaan ku oranaynaa waan ka soo horjeednaa waad qaldan tahay ka kac kursiga okay gabadhii radio maxaa radio bukaaco
waxay awal oran jirtay mudane madaxweyne waxay tiri war way ka dhamaatay iska tag meesha waa just xaq bay u leedahay Ilyas inuu ku raado war meesha iska tag xaq buu leeyahay inuu ku raado Cabdiraxmaan waa bari xaq iska tag aqoonyahanka reer Djibouti waa kuwa wayaan aqoonyahanka reer Djibouti ma aha kuwa aad leedahay aqoonyahan baa tihiin la garanay buug qorin journal qorin maqaal qorin adiga on ka sheekaya ليس هؤلاء مثقفين مركا اخي في الله جيبوتي وانا غرانو غير جيبوتيو جيبوتي واكسبسيونيل جيبوتي ودوله تشكل كاذبه سمايسه سبانا لو ابوري جيبوتي سبانا لو ابوري جيبوتي اياله بالاسكو هيستا لاميكا افرتن سنادود بالاسكو هيستا جيبوتي اياله ودadka laga ceshanaya haduu shaqo Cabdiraxmaan Baqas hada waxa lagu leeyahay reer Djibouti ma subhanallah oo kartoon buu ku dhashay سور جيبوتي وقف رير جيبوتي هدو هلا خضر واحد يقول رير جيبوتي ماها هدو فؤاد هلا واحد يقول رير جيبوتي ماها اسكدا ايسغا ان حاج اسماعيل وهلا ايان له يا ما رير جيبوتي ماها ورير جيبوتي كان واي رير جيبوتي waxa weey qofka اسماعيل عمر صاحبك utuma meeshu doonaya ka yimaado انت تريد ان تكون جيبوتيا شيف kala joog maxaa markaa jira kanad foleer ka noqo بريزيدانكي وكارت ولا كيس انت الله فدي هدان اسك ديدنا هدان كو دبا نقونيانا لا ما دي جيبوتي ورجوت ما كو نقونيا halkan la joog aqliga ba Djibouti ma taxkum ikhwani fillah wa aqli gaboobay oo ay ka dhamaatay aqligaasi anu waxaan ku tilmaamaya Ismaaciil Umar Geelo war waajusadi wa Nabi Suleyman markuu dhintay ma garanaysaa Sheekh Axmedow alayhi salaam markuu dhintay muxuu ahaa jusku oo iska yaaloon ifriidi iyo shayaadiinta way ka cabsoonayeen dadku waxay arkayaan isagoo diyaarad ka soo dhacaya isagoo baabuur koraya war wuxuu waajusa uu dhacay uu socday waxaad ka cabsoonaysi wax jira ma aha waxana ka cabsoonay wax jira ma aha waa inaan tashano weeyaan waa inaan saddex shay ka tashano qabiil waa inaan ka tashano war qabiil han iska diino jibuusiyaaniti ha ku shaqeyno laba waa inaan ka tashano dalkan inaan yeelno conscience wax ضمير yeelno wadani waa inaan yeelno taana ka tashano arinta saddexaad xaq u dirir iyo baadil diid ha noqono qofka la taabsado ha wada garab joogsano qofka xaq ku joogana ha wada garab joogsano waakaas waa ka baxay walaalkay جزاك الله خير halka su'aalaha rabaa sheekina ka weydiiyo waqtiguna aad bay noo ciilaya mawduucanna waxaan aad u rajaynayaa runtii in xalaqaad laga dhigo maadaama maanta dadka reer Djibouti waa dad caalami oo caalamka ku faafeen oo meel kasta joogaan anigu waxaan ku oran lahaa khidaab islaamiga iyo taqyiirka iyo inoo dibdhig maanta waxaan ka hadlaynaa Djibouti iyo Dardhabe iyo Ethiopia iyo bas mawduucan ku jira insha Allah خير الله كسيو شيخ waxaa jirta geeska Afrika maadaama oo Soomaaliin nahay umadu way isku gudbeen de waxa lagu wada nool yahay caalam la wadaagayo wax kasta maanta oo waxa maanta Djibouti ka jira Hargeysa ka jira Muqdisho ka jira Garowe ka jira dadku way isku gudbeen Dirdhabu ka jira Jigjigu ka jira waa la iska warqaba laakiin waxa dhici karta dadka qaarkood maadaama oo yacna location ahaan plus ahaan maadaama laga yara kala fog yahay waxa laga yaabaa dadka qaarkood ee geeska Afrika jaarka la dalka Djibouti waliba aan oran karo Ethiopia Soomaaliya Somaliland Kenya dadka walaalaheen ee ku nool waxa dhici karta wax badan in aynan ka warqabin Djibouti xaaladan aad ka waramayso wax aad ka waramayso waa xaqiiqo jirta laakiin la isku dayrayo in la daboolo oo la qariyo sheekh waxaad ogtahay in Djibouti lagu soo dhaweeyo dadka fanaaniinta kow ee reer Soomaaliya iyo reer Ethiopia meesha doonaan ka yimaadaan in lagu soo dhaweeyo ganacsatada in lagu soo dhaweeyo aqoonyahanka Soomaaliyeed Ethiopianka Kenyaanka meesha doonaan ka yimaadaan Djibouti in ay tahay meel la isugu wada yimaadayaan anu arintaas waan soo dhaweynayaa waa wax fiican waxaan isweydiinayaa ka reer Djibouti ee aqoonyahanka aaway ka reer Djibouti ee caalimka aqoonyahanka ee wax soo saar kale ee ganacsatada aaway ka maxaan ku idhaahdayay isagu meeshan ku dhashay sida aad hadda tilmaamayso ee u baahan in garab loo noqdo aaway waxaad arkaysaa maalin dhaweeyto waxaan la hadlay dhalinyaro isoo wacday runtii waxay tilmaameen dadka reer Djibouti in ay gaajoonayaan dadka banaanka ka yimidayna in ay xoolo badan haystaan
bal jabuuti ay ku dhex nool yihiin iyagoo xoolo badan haysta ilaahay u barakeeyo xoolahooda waxaa isweydiin la qofka reer jabuuti dowladda reer jabuuti iyay u jirtaa haddaynan qofka shacabka reer jabuuti aynan u jirin taasi waa mid sheekhaygi midda labaad dadka soomaalida waxay yidhahdaan maadaama jabkii uu dhacay maxaan ku idhahday 1991kii siyaad barrana allahu naxariiste ee 1996kii uu dhintay waxay dhahaan haddaan sabri lahayn oo yar adkaysan lahayn 5 sano ka bacdi siyaad uu iska tegi lahaa waxay kaloo dhahaan dowlad xumaa dhaanta dowlad la'aan arrintaas waxaan rabaa in soomaalida aad loogu toosiyo dowlad xumaa dhaanta dowlad la'aan waxaan ku weydiinayaa sheekh ma dhici kartaa maanta markuu ismaaciil yiri ilaahay ha hadeeye lacagtii tresorka taalay waxaan soo qaadnay oo bbcda ka sheegay waan soo qaadnay oo waxaan keennay haramuus eeg waa bangigii dhexe waa wiishii yani waa meeshii kaydkii dalka jabuuti dhaqaalihiisi gurigaan keenay ma isleedahay asbaabihii ay ku kuftay ku dhacday dowladdii soomaaliya weyneyd jabuuti way ka muuqataa sheekhay maxaadse aqoon-yahanka soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed siyaasiga soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed maxaad u jeedinaysaa sheekh akhi horta dadkeenu waxay isku khaldaan waxa dhacdo sunnaha ilaahay ee kowniga ah iyo waxay isku khaldaan waxaan jecel lahayn doonayno waxa aan doonayna waa wax ilaahay systemku adduunka u wadana waa si weeyaan haddaad aragtid dowlad burburaysa waxaa burburiyey sunno ilaahay ma aha mucaaradna ma burburin qabiilna ma burburin soomaaliya waxaa burburiyey systemkii ka talinayey systemka ka talinayay muxuu ku burburiyey wuxuu ku burburiyey 3 shay wadankii oo dhan ee soomaaliya la oranayay xamar baa laga dhigay caasimadda laga dhigay muqdisho hargeysa ma dhisnayn boosaasta ma dhisnayn imika dhismay waxan xataa boorama qaryad bay ahayd heejad bay ahayd laakiin maanta boorama waa magaalo weyn way dhisantay maaragtay Somaliland way dhisantay Puntland way dhisantay maxaa dhisay dadkii baa yeeshay dadkii baa u kacay laakiin shalay toole markuu siyaad bara joogay muqdisho iyo tii qoraysaba muqdisho un baa la dhisay idan waxa la iska iloobay wadan weyn inuu jiro oo u baahan service marka ta koowaadi waa taa weeye dadku inay qaldaan maaha arinta labaadi waxa weeye dictatorshipku isagaa fasaadka keena quraan baa inoo sheego waan sheegi doonaa isagaa dowladaha burburiya ciraaq maraykanna ma burburin dibadna lagama soo weerarin Saddam Hussein baa burburiyey waalidiisii mar Iiraan buu weeraray mar Kuwait buu weeraray mar dhulku dadku leynayay mar Kurdidu leynayay waalibu waa u walla nin waalan buu ahaa lacag helay oo xoolo helay oo dal yeeshay buu ahaa yafcalu ma yasha Liibiya dadka kacay ma burburin Qadaafi ma burburiyey 40 sano ka dhigay bilaa shakhsiyad dadka qabaa'il buu qaybiyey ummadii buu sii baabiyey isaga burburiyey Yaman Ali Abdullah Salih baa burburiyey كان يلعب بالثعابين dadku ku ciyaarayay marka dadkeenu waxay leeyihiin natiijada arkaya resultaaga ma sababta asaasiga waxa weeyaan quraanka inoo sheegay wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira ilahi bayna ani ma waxa leh suuratul isra ilahi wuxuu leeyahay hadaan ilahi markuu rabo inuu dal baabi'iyo ummad baabi'iyo wuxuu amraa dadka xoolaha leh inay asaasaqaan inay qooqaan inay waxay dooni sameeyaan inay faasiqiin noqdaan markaa buu kelmadii sunnihi baa imata ilaahayna uu baabiya tabaaraka wa tacaala nabigu muxuu yiri calayhi salaam inna allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadha lam yuflithu ilaahay dhaalimka uu yirdaaya uu sii qooqa uu macaansada warad way hurdaane waa dhaadhaanine waad kala qaybisay لكن مركو قبطو ما بحان هل كا ومحي وقفكي وظالمكي لكن محا إلهي النبي محو أخري كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلهي مركا أو قبط وطن يهجدو يمغالوين ظالمين سلابو إلهي أقلابو للنبي عليه الصلاة أخري أريتها سوا محي ولا يشك وحا أخرنا محي تاي سنة على سنة وميتودولوجيا إلهي الدنيا كلها نقمو سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا الله تبديلا عاود دقال ريريد حدوثي كدعو إسماعيل عمر بأصابة هذا يجيبوتي بربورتو إسماعيل عمر بأصابة
لأن الدولة نمدي مبابي أنستيتيوشنادي مؤسسات دي مبابي وحول بيسقى يا شيء dadkii way cadhoodeen marka iyo dadkii ka cadaysiyay waa isaga marka ay leeyihiin dadku dawlad xumo iyo dawlad fiican dhaanta waa ku waafaqsanna dawlad la'aan laakiin dawlad xumo waxay keentaa dawlad la'aan dawlad xumadu iyada keenta dawlad la'aan iyada abuuraysa dawlad la'aanta ilaahayna tabaaraka wa tacaala sunnatul ihlaak buu ka sheegayaa sunnaha burburinta ummaduhu way burburaan yaa burburiya dawaaqiita burburiya ma aha dadku ma burburiyaan dadku nina ma raba inuu dalkiisu ka baabo marka taasi waa arrin weyn muhiim ah marka akhi fillah marka aan leenahay waxa weeyaan dadka Soomaaliya waxay doonayaan hadaan taswiir baa jirta aan halkan ku hayo walaalka tikniisiyaguna u haya taswiirta waxa weeyaan waa 79kii 78kii ciyaartooygii Djibouti waa equipe national wixii loo jiray ya waxaan u maleeynaa soo gaadhay walaalkay waan u diray تكنيسيان وحا مشى يالا waxa weeyaan maxamed oydin waxaan kaaga sheekeynaya ciyaartooygaasi siday bariga u qurux badnaayeen jirka bini aadamku soo dhisnaa waa 79kii waa 80kii waa dadkii aan xirkubada kartesiis aan ka daawan jirnay weeyaan waad garanaysaa sheekh jawhar waxa meesha ku jira waa iftiin ilaahay u naxariisto iftiin baa ku jira oo ahaa ninkii lambarka 5 maarta ka ciyaaraya 9 kan u jeeda ee weeraryahanka ahaa ee Djibouti oo dhan ay taqaan ayaa ku jira waxa ku jira maxaan ku idhaahdaa oo halkan ii yaala rag aad u fara badan oo ka mid yahay Shaydan Ciid waxa la sheegay inuu Sweden iyo meelaha uu joogo Shaydan Ciid ninkone u ciyaari jiray FNS imikana FMB baa dhada ma baxa loo police national loo bixiyay laakiin bariga FNS baa loo oran jiray FNS tuu ciyaari jiray ciidanka maartay poliska ay u ciyaari jiray waxa ku jira Xasan Hindiyo nin kale dhaha ya نيتي ما كجري حسن هندية كجرا ما حاتري نيتي ها هكذا كون يمكن نيتي كمجرا صورتني وحا كجرا ان حسن هنديو يا كجرا وريكارتيسها او عياري جري ارمين ناسيونال كعيدنكا una ciyaari jiray markii hore aeroportka amba qoladii Soomaal galbeed oo jiray waxa halkan ku jira Umar nin kala dhacdo oo ciidanka FMB gu ciyaariyo todobada uga wartamay waxa ku jira Ali yaaba ku jira oo yaasiyaaba walaalkii ahaa ilaahay u naxariisto labaduba khatar bay hayaan waxa halkan ku jira Sabate oo imka safiirka Suudaan oo maartay SME-ga u ciyaari jiray maartay iya ku jira halkan waxa ku jira rag fara badan dacaw baan arkaya ninka dacaw la dhacdo oo FMB-ga u ciyaari jiray dhexda uga ciyaariyay waxa arkaya ninkii goolka qaban jiray oo magaciisa waa in loo dheeraa ee u qaban jiray booliska waxaan magacooda waan garanayaa saaxiibada maani way iga weynaayeen laakiin waa daawan jiray marka raggani bal jirkooga eeg technician sheekh maartay muxuu ahaa shirwac soo bilowday taswiirta quruxda ay jirkoogu leedahay maanta reer Djibouti daawo soo eegi reer Djibouti maanta soo eegihiin xalay waxaan daawanayay magaalada Xamar iyo habeen horeeyo oo la lugeynaya dadku ay lugeynayaan magaalada Muqdisho dadka lugeynaya la wareysanaya wallahi nin walba waxaad moodaysaa inuu Mareykanka iyo Kanada ku nool yahay iyo Faransiiska Ingiriiska quruxda ay dadkaasi leeyihiin reer Djibouti markay television ka soo baxaan waxaad moodaysaa inay qabuuraha naga soo ziyaarteen ummadaad moodaysaa yaa dumiyay man alladhi dammar yaa dumiyay reer Djibouti quruxdan bay lahaayeen waa kan lagu inta la leeyihiin daawo inta ay leeyihiin shafkooga daawo nin walba waxa soo baxsan shafka soo baxsan nin walba dhexda yar nin walba qurux buu leeyahay waa rag kubadda ciyaari jiray 79 okay man alladhi qatalahum ya sanu galay su'aashu waa taaway waxa kaloon ku sheegaya anigu marka aan leeyahay maalin dhawta waxaan dhageysanayay ninkii maxaa la dhahdaa imna su'aalka sameeyay muxuu ahaa qarshiile ilaahay caafiye iyaan dhageysanayay qarshiile waa ninka sameeyay heesta calanka hinjiye waxa sameeyay wuxuu lahaa hooyo khadraa aba ismaaciilo iga dhax la hawla wala quwwata illa billah marka bay ka duubayaan qolo ay u tageen bay kale muxuu $300 $400 $500 $3,000 $5,000 inuu qaato fadhi ku qaatay muxuu ku qaataa Ismaaciil Umar lacagta wuxuu ku qaataa Ismaaciil Umar lacagta madaxweyne ahay kana ka khatarsan meel kasto tagtid waa lagu calanka baa lagu saaraa qooriyara muxuu ku dhintay isagoo gaajoonay u dhintay
madaxweynaha qaraabay yihiin laakiin maalin buu sheegay maalin buu hadlay uu yiri waxbaa jira dalkan waxbaa jira waa la dilay inkastuu wax kasta sameeyay oo aniga i caayay oo Cabdiraxmaan Barkhad caayay oo dawladda oo isiyaasan caayay wax kasta sameeyay lama saamixin ninkii kale taawe ee libaaxa ahaa ee calanka sameeyay isaguna saddex bay ku sameeyay maato qaraqan marka leedahay fanaaniin Soomaaliyeed rasuulaya ahlan wa sahlan soo dhawaada maxaa ahaa ninkii maaratay in fanaankii weynaa Soomaaliyeed muxuu Xasan Cali Sabatar ahlan wa sahlan soo dhawow ummadda Soomaaliyeed waan ku jecelahay waxaa tahay nin Soomaaliya laakiin maanta siduu eeg yahay fanaankii weynaa ee dawladana aan ka agdheerayn ee maaratay oran jiray maaratay waxaan ahay muxuu ahaa aadan muxuu ahaa ya aadan farax maanta suu eeg yahay aadan farax dawladda kama agdheero qadarasiyaa layra siiyaa suu eeg yahay iga waran suu eeg yahay bal iga waran تصوير soo dhiga waad fariiri siduu u eeg yahay markaan ka imano Cabdinuur Allaale fanaan qaran oo la yaqaan siduu eeg yahay wax kastuu sameeyaa inuu iska dhigo RBBst Fuad Ilkacse siduu eeg yahay maxamed Faaduma Ahmed see u dhimatay aaway aabihi fanka Djibouti hooyadii Umu Kaltuum nimca jaamaca ayna nimca jaamaca كيف تعيش الان سووا نوشها nimca jaamaca سعيد حمر قور او RBBst سدو دنتي كيف مات عبدو حمر قور سدو دنتي كيف مات سدو دنتي maxaa ku dhahdaa furshaad الله يرحمه جيسي سدو دنتي يا اخي انا وارينا بلا ذاكره منهم حسوس بان leenahay markaad wax tiraadid waxa la doonayaa inay gaajo ku qabato ayaan baan ka soo baxay biro aan ka shaqeynay waxaan arkay qarshiile waxaan arkay lama nin oo kale magacoodana sheega ma oo hor joogta ninkii dhintay ee ina xid oo lacag weydiisanaysa oo gaariga tusaa u garan maray iyo iska yara dhaaf saaran buu eego iska dhaaf markaas baan u yeeray waxaan ku maxaa doonaysiin waxaan u imanay dhaateen ninkan oo waxba kala doonino waa naxay number shay dhaba qof bay sidii qaas raacnay bal zalaamo baan geeyay saaxiibkii lacag qaaday waa siiyo iska socda iska taga meesha wax ka naxaysa dadka waxa la doonayaa inay baahdaan inay gaajoodaan waxaan garanayaa fanaanka waxa la siinayaa 40 kun waxa laga oranayaa مثلا ninkii maaratay markii dhawatay Ismaaciil Umar iskhilaafeen ee baxsaday ee la daba urdiya tagay maxaa dhacdaa in Soomaaliland xasan hargeysa tagay yaa la oran jiray waxa siisaa fanaaniinta wax ka shaqeey ka dhigo fanaaniin oo xasan wadaya ka mid yihiin yaa lacag u la oran jiray xasan wada hees yar oo caadi uu iska sameeyay oo iyada waxba uu wali jeedin baba wankayga cadow hanaaxil wax dhacdo iyuu sameeyay waxa qabsaday Ilaahay badalay Sweden buu orod ku tagay ya ku noqda iyo ku sii noqday waxba ma jiraan waa lagu xareeyni waraaqada la isticmaala laga dhigi kadibna sida waraaqadan markaan isticmaalno in sida orano maxaa sameeynaa waa tuurna علي عبد الله صالح يقول انا استعمل الناس كاوراق ثم ارميهم في الزباله dadka waxaan u isticmaalaa sida waraaqada kadibna waxaan ku tuuraa buuri meesha gidaafada lagu tuuro ma fahanteen marka waxa waa in la socon weeyaan marka aan leenahay waa la soo dhaweynayaa fanaaniin waa culuma la soo dhaweynayaa wax la soo dhaweynayaa waxa la soo dhaweynayaa dadka lagu waalay reer Soomaaliya la doonayaa in shacbiyad laga sameeyo reer Soomaaliya Djibouti way yaqaanaan laakiin dantooda ila sharciyo anu waxba kama qabo masaakiinta soo qaxootiyooday ee dalka joogta inay si edaba u fadhiyaan li'anno waxbana kuma qaban karaan marti wanaagsan ahaadaan afkana ha naga haystaan laakiin nin baa ila socday reer Soomaaliya mar diyaarad baan soo dhacay Djibouti waxaan soo dul marnay xaafadahan balbalo oo dhan daaqadu ka eegay wuxuu iga yiri war waxan waa maxay waxaan ku yiri waa Djibouti mixro qaxootiba ma wareer Djibouti ma oo meeshan yaa galabul reer Djibouti waa galaan kee oo xirooyinka qaxootiga Kenya waqtay wuri waxaan isla banahay inna waa xiro qaxooti inna waa haramuus dadku waa intaaba in kale u dhaxaysana ma jirto marka waa kaas waa saas mid ku waa saas waa ka baxay sheekh igu laabo su'aashu waxay ahayd dabcan maxaad ku oranaysaa sideed ula wadaagaysaa yacni waxa ka jira ummadan reer Soomaaliya reer Ethiopia meeshay doonaan ha joogaan aqoon-yahankeeda ganacsatadeeda siyaasigeeda
طبعا ولا اسويدين يا اللهم فشل بريتو ولا اسويدين دونا طبعا همين دويد waxaan arkay Sheekh Jaharo waxaan ku sheegayaa Sheekh Jaharo reer Soomaaliya waan wada sheekaysanaa aqooyahanka waan sugnahay way og yihiin Djibouti xaaladda ka jirta inay tahay Djibouti iyo Eritrea pointka quraate ee dictator ee geeska Afrika ka jirta Djibouti waxay og yihiin inay tahay meesha quraate ee u nool sidii mooyanaashki maanta reer Djibouti reer Boorama ka sharaf fiican ka cunto macaan ka hawo macaan ka nolol fiican reer Hargeysa ka nolol fiican reer Dirdaba ka nolol fiican anu waxaan sheegay wagarnaa waan xagaa bixi jirnay dadku wayna daawan jireen lacag bay naga soo doonin jireen jeebkayga waxa yimid dadkii lacagta daadaayina la oranayay maantana waxa yimid dadkii ka baxsan reer Djibouti laga baxsan markaasi halka baan soconaa arinta labaad waxa weeyaan kontrabaga Djibouti ka bixi jiro Ethiopia iyo Soomaaliya galay maanta Djibouti buu kontrabagu soo galaa loo yacad booliiskiina iyo jeedaankiina waxay ka shaqeeyaan kontrabaga suuq liberaalna waa sheegana liberaal baan nahay liberaal magaalada Hargeysa iyo Wajaala loo doonta aroosku maanta alaab markuu iibsanayo Dubai ma tago Yaman ma tago Saudi Jidda ma tago Hargeysa la tagaa Wajaala laga soo iibsadaa waa maxay suuqa xora haga suuq xora ma jiro akhi fillah waxa weeyaan waxba socda dadku waa inay gartaan marka adiga iyo aniga ma aha ina u noolaana si beenbeena ina u noolaana ma ya banka la dhahdo bank salaam la dhahdo Djibouti ka jiray reer Djibouti uma furno dadku reer Djibouti furay moodayaan wuxuu furay reer xamar ictimaadka ila Soomaaliya wala ma ictiraaf baanaki loo ma ictiraafine waxa weeyaan waxay lacagta Soomaalida marta banka dahabshiil lacagta Soomaaliland baa marta meeshana waa lagu yara dhuumanaya waxa lagu sugayaa waa verbe attendre waxa la sugayaa intay Soomaaliya iyo Soomaaliland degayaan ay xurriyad helayaan oo dhulku nabad noqonayo waa laga guuri waa lagu barnayn waxa loo daas Ismaaciil Umarow dadkan laala aday ku taalaan waa ku yara sugayoon waa dad meesha nagu sugayoon inta wax hagaagayaan marka milyaarada mara ee adduunka wax laga soo iibsado koonfur ay ka yimaadeen imise qof Djibouti maxay ka qabtaan aqalay ka dhisan lacagta anu dirasa sameeyay waa soo saari doona ragga ka shaqeeyana dirasadiisi banka salaam reer Djibouti imisay maalgelin ku leeyihiin reer Soomaaliya imisay maalgelin ku leeyihiin dahabshiil kadalik igis Djibouti igis xukuma leh lacagta banka dhex maraysa banka kad ya leh wala banka Malaysia ya leh banka yare kharaabkee ku hoos yaala maxaa dhacdaa meeshii la oran jiray Napoleon Bonaparte hudda ku jira baba hud gala yaale okay reer Djibouti laba bank bay leeyihiin BCE iyo PIS labada bank bay reer Djibouti leeyihiin iyo bank imika saba la dhahdo oo loo bixiyay banki Afrika mooja Afrika xordoonta bank magac buu bixiyay reer Djibouti ayaa maalgelin ku soo waan maqlay laakiin isaguna naftiisu waa saas laakiin baanakan waxaan iyo waxa weeyaan boqolkiiba 80 lacagta balanshismaaga ee la cadeeyo ee Afrika geeska Afrika dhacda Djibouti way martaa hubka Djibouti waa lagu kala gataa waxa weyn waxan oo dhan meesha laga shaqeeyo waa Djibouti ragga ka shaqeeya magacdoodu waa macruufiin waa dad maartay inuu Umar Agtiisa jooga oo isna uu joogo waxa ka shaqeeya Mareykanka ku haya uu qabtay imse goor buu qabtay madfici Ismaaciil Umar Agtiisa ku agdhacay muxuu ku dhacay dad baa u haystay inuu iska dhacayo madfacaasi digniin buu ahaa hubka shiinaha laga soo iibsaday ee yimid Djibouti ee magaca Djibouti ku iman aad wasiirka arrimaha difaaca ee mar Djibouti joogay iyo Chinaha tagay waxa raacay ciidamo inta aqalka laga tagaa la soo sheekaysto loo soo noqdo waan soo dhameynaa laga yiri markuu soo laamayso waa cadaysa buu soo noqday xama qabanday isku hiido aqalka iska tagay waa la eriyay markii dambe meeshani waxa weeyaan waxa jirta mafia jirta mafiyadan waxay rabtaa dadka reer Soomaaliya way og yihiin wax loo sheegay ma jiro way og yihiin boorka maxaa dhada gacanta iyo inuu ku qabto doonaya boorka boosaaso iyo gacanta inuu ku qabto doonaya ninka boorka Djibouti xukuma iyo doonaya gacanta ku qabto muxuu gacanta ugu qabanaya waxa loo diray ma dhaweyto nin kale oo saaxiib ahaan jir iyo loo diray waxa la banka kala soo soo maxaa looga jeedaa limaada maxaa maartay banka barbara iyo daba socda maartay waxa jira boor labada boor iyo daba socda dikadaha iyo daba socda dekada Djibouti waxa ka shaqaysanaysa system baa jira Djibouti marka akhi fillah reer Soomaaliya waxba ma sheegan way og yihiin ku daalno abjaar kuwa kula hadlaya waa laba qolo waa dad caatifiina
الله جيبوتي نغا بابي حمر با نغا بابا حمر يا بابي ماذا بابي حمر ما waxa baabiye qabiil waa been qabiil ma baabiye xamar system baa baabiye laakiin dadka Soomaalidu doqmeen noqdeen waxay kala garan waayeen war adigu soco oo dalka reeb anagu taasa ka shaqeynaa Ismaaciil Umar baan soco leenahay iyo waxa la shaqeeyaa laakiin dalka ma baabiyeen lan nasmax in Djibouti baabaado ma aqbaleno laakiin haday baabaadana anagu mas'uul ka manihin saaka mas'uul waan ka digaynaa waraaqad baan qornay 12 sano ka hor Ismaaciil markii loo qornay saddex baash ah saddex bog ah aniga iyo sagaal kale wadaada iyo mufakirin ah wuxuu noogu soo jawaabay meel kale aad ku nooshiin meeshani waa barwaaqi bashbash waraqada maxaan ugu qornay imika maaha waxaan qornay waa 12 sano ka hor iyo sano ma jirin waxbana ma jirin mucaaradku muxuu weynin marka daaf yarag baa la ereerinay war waxaan ku oranay saddex shay buu ka cadooday war ninkan daaf la dhahdo iyo ninka buuro la dhahdo iyo gabadha nimca jaamac la dhahdo iyo ninka cawaale dhahdo cawaalanku isku hoyday iyo ninka cawaale la dhahdo iyo maxay la dhahdo waxaan iska saamaxo wadankooga iska soo noqda kow labo wadankani idaacad qudale ee raadiyo qudale television qudale ee joornaal qudale baabi iyo wadanka hal hadlo labo saddex waxaan wadankani bila xuquuqda dadku durwaa iyo xuquuq isku mid hayeshaan waxa kale tana boqor iska noqda doonis bal inta noo samee bal hada kan korana daaw kaama horjeedna inta uu noo samee wuxuu yiri meel kale aad ku nooshiin wadaadaatiin horumar buu dalku ku socdaay ila shaqeeya haddaad ila shaqeynayna xisbi samaysta ila soo dhigta haddaa ila soo dhiganayna gabood baad u tagaysiin bulshada dawaakii gabood nageyde xabsi nageyde ahlan wa sahlan sheekh khayr allah ku siiyo waxaan uga gudbaynaa dabcan xalaqaadka kale ayaan kusoo qaadan doonaa dabcan taxliilka waxaan rabaa inaan uga gudubno Ethiopia dirdaba dad baa lagu laayay sheekhaygii sidaad og tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka dirdaba degan ama Ethiopia degan ee Soomaalida ah horta qolyaha sababta loo laayay maxay tahay waa mid labo maxay qabsan karaan sheekhay maxay qabsan karaan dadkan okay kalsooni intee la eg bay qabaan horta ana mid baan kuu sheegayaa Soomaalida Ethiopia ku nool wadaniyiin ma markay Ethiopia la joogo waxa la yiraahdaa waa wadani darajada labaad ama darajada saddexaad eeg qofka Ethiopianka ah madaxiisa waxa ku jira waxa la Soomaali qushaasha ma maqashay Soomaali qushaasha ya wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya Umar Arte Qalib ilaahu naxariiste oo ahaa madaxdii weynada Soomaalida iyo bari booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa markuu Addis Ababa tagay waxay ku yiraahdeen adaacadda Addis Ababa amxaarka maxaa ka taqaanaa wuxuu yiri kamid baa ka taqaanaa maxaa ka taqaanaa Soomaali qushaasha baan ka taqaanaa objective buu kala ujeedo yani Soomaalidii xumayd ee zabaalada ahayd ee gidaafada ahayd way qushash baatiin Soomaalidu waa qushash madaxa ninka amxaarka ninka Tigreega waxa ku jira Soomaalidu waa qushash waa gidaafad qofka Soomaaliga sidaa bay u aaminsan yihiin laakiin waxay og yihiin Soomaaligu inuu yahay dynamic inuu yahay nin baayac mushtar eeg Addis Ababa Soomaalidu waxay tageen 40 sano ugu dambeysay berigi hore qofku hadduu Addis Ababa tago isagoo reer Ethiopia waxa loo oran jiray baduu dhaafay waan garanayaa war hebel aawe baduu dhaafay waa webiga yar hawaash buu dhaafay marka nin dhaafay oo baari tagay ama London tagay ayuu la mid yahay qofku inuu xamar taga uga fiicneen isagoo reer dhaba ama reejiga inuu Hargeysa tago ama inuu Djibouti yimaado uga fiicneen ولذلك dadka Soomaalida waxa loo sameyn jiray waligeedba waxa la yiraahdo caga jugleyn marka caga jugleyn loo sameeyana way yaaci jireen Ethiopia Soomaaliya tagay madaxdii Soomaaliya xakuntoo dhan asalkoodu waa Ethiopia taa hadda ogu madaxdii Soomaaliya xakuntoo dhan originalkoodu waa Ethiopia way soo wada yaaceen madaxda imika Hargeysa iyo Boorama ka buuxda usuushoodu waa wada Ethiopia kuwa Djibouti jooga usuushoodu waa Ethiopia waa la waabiyo way soo wada yaaceen imika na taamahdi waabistaasi ma dhamaato marka arinta labaadina waa taa way socotaa arinta saddexaad waxa weeye dareenka qofka Soomaaliga ee Ethiopia ku nool waa inuu laba shay yeesho
labadiina ma leh waan Ethiopia waan ka go'yo waan xoroobi dawlad Soomaaliyeed ma samaysani ani leeyma hanjabi karo waxaan leeyahay dhul ka weyn Soomaaliya France ka weyn Jarmalka ka weyn yaan Ethiopia ku dhaxlaahay xuduudaydu hawaash bay gaadhay ilaa naasirad bay garka ku haysaa ani leeyma hanjabi karayo waxaan ahay 8 ilaa 9 malyan oo qof oo Ethiopia ku nool Soomaalida Soomaaliya joogta Kenya joogta Djibouti joogta usuushoodo dhan maartay xididadoodo dhan waa Ethiopia marka anu haddaan Soomaali ahay oo halkan joogo karti baan u leeyahay inaan goosto dastuurkuna uu ogol yahay iminka Tigreega ku hanjabaya sida wallahi waan goosanaa Soomaalidu ma oran karayaan waan goosanaa way cabsoonayaan laba Soomaalida waxay xaq u leeyihiin inay ma goosanayno laakiin Ethiopia xukumayno Ethiopia ka talinayna Ethiopia saan uga talinana waxaan la heshiinaynaa reerka ugu weyn Ethiopia oo Oromo laba shay baan la heshiinaynaa kow isku asal baan nahay dhinaca maartay tarankayaga meel baan ka soo wada jeednaa dhinaca kale muslimiin baa wada nahay inta ugu badan waa heshiinaynaa afarna waa la heshiinaynaa danteeda garanayna Soomaalidu waxa ma leh hoos bay u dhaadhacayaan reer dhagax reer qurac imika waxaan maqlay laba qabiil oo isdhalay oo abti isku ah iyo digaandig iska dhigaya gobolka Soomaalida ugaadeenaya digaandig bay iska dhigayaan dagaalkii qabiilkii siyaasiyiin waa la islaynaya waa la ismarinaya okay dhinacan Dirdhabe waxa weeyaan annaka nolosheena waxa lagu saleeyay wax dhado contraband Soomaaliya ka yimaada aba Djibouti ka soo gala badi Soomaaliya ka yimaada Somaliland ama Soomaaliya markuu Ethiopia yimaado xeer baa yaala kontrabagu marka uu dariiqa socdo qabo laakiin hadduu Dirdhabe soo galo ma qaban karaysi ilaan meesha la Taiwan suuqa Taiwan waa Balzramboyo kale amba maartay waa suuqa waaweyn ee xamar ku yaalo kale suuqa Taiwan ee Dirdhabe ku yaala waxa yaalo oo dhan waa kontraband ugu yimid qofna ma doonay lianna meesha Soomaalimaana dad kala leh meel waxa jirta maxaan dhibay xaafadda oran jiray annagu aan naqaan marka yareen iminka waxa loo bixiyay ashawa magaca la beddelaya waa sida Israa'iil oo kale Palestine waxay wada bedeshay magacdoodii oo dhan Haifa Yafa waxay wada beddelay maxaa loo bedelayaa aduma lahay baa laga leeyahay marka Dirdhabe xaafadihii baa magacdooda laga beddelay xaafad Ciise maxaan dhibay wax magacdii oo dhan waa la beddelay ashawa magal waan maqal magaca baxma ashawa maqal xaafadda maxaa dhibay suuq ba ku yaalo weyn suuqa waxa dhex yaalo oo dhani yaale waxa le kontraband ku soo galaa laakiin kontrabandu markuu socdo uu xaafad Soomaaliya galo booliiska waxa loo yeedhayaa maartay qaranka oo ka daba imanaya booliiska qaranku muxuu sitaa hub buu sitaa dadkii buu leeyahay waa terror dadku ma fahmayaan una leeyahay waa terror baa xanaa terror dadka ka cabsi argagixi u sheeg inay wadani ahayn inay ajnabi yihiin u sheeg marka haday sii qeylqeeliyaan Griffan mudaharadana waa la leeyahay rasaas baa lagu furaya sida uu sheegay aadan allaale oo halgamaa weyn oo reer Dirdhabe oo aan aqaano ilaa yaraantii nin weyn oo reer Djibouti ahaan jiray wuxuu sheegay kelmad cajiib ah wuxuu yiri 7 barkii rasaastii bilaamatay waxay istaagtay 12 barkii doonay maxaa rasaasta loo ridayaa waxa loo ridayaa liajli hadaf ah takhwiif الناس in dadka laga cabsiyo idan baa la dilay waa la soo aasay gabadh bay madaxa ka dhacday sakaraad bay tahay afar kale way xanuunsan yihiin dadka waa la leeynayay waxa lagu leeynayay Soomaalinimo nin kale oo geesiya oo wadaniya maxamed macalin raado isaguna wuxuu yiri oo reer Dirdhabe wuxuu yiri war wadani noqda ama meesha iska taga lan tudee wadani noqda reer Dirdhabe Soomaali noqda ilaa Soomaalidu waa dad guura loo haystaayo bariya ayaan ku yaraad keenay leeyahay magaalada Dirdhabe 1960kii boqolkiiba 80 Soomaali bay ahayd maqaanka Sheekh Isxaaq la dhahdo maqaanka Sheekh Isxaaq waa taqaanaa Sheekh Isxaaq reer dhan oo Soomaali weyn waa ka tabartay maqaankoodu Dirdhabe wuxuu ku yaalaa meesha qafiirka la dhahdo oo iminka qof Soomaaliya deganin hoosteeda buurta hoosteeda ku yaala okay xaafadda maarata uu ku yaala masjidka Saylici la dhahdo hareerihi marka la dhaafo masjid jaamaca xaafadda waxa loo oran jiray xaafad Ciise loo oran jiray Soomaali baa degan jirtay maanta xaafad Ciise waxa dhahdaa meel wala soo durkiyay okay dadkan waa la daba socdaa waa la eryanaya waxa loo diidan yahay inay dhulka yeeshaan guudka dhan ee Dirdhabe gazidada waa laga soo eriyaday
waa laga soo eriyay xaafadaha sare oo dhan digadaha fiican leh meel baa la isku keenay biyuhu ku soo shumaan yaa isku keenay dira dhaba hareeriyaheego dhan haddaad eegtid Soomaali baa degan qabaa'isho dhan leh iya degan oo reeraha u bataan maarti gurgure iyo ciisaha u bataan hareeriyaheego dhan dira dhabe dadka baa degan waxa laga leeyahay dira dhabe ma leedihiin marka dadkan waa inay maantalma waa inay isbedilaan waa inay yiraahdaan sanabqa huna raqm almihan halkan baan leenahay waan joogaynaa waligay wixii doonay nagu samee nahnu huna annaka ala dira dhabe qofna lama leh hal yaqulu mid baa yarba ay soo qar maalin walba ciise maxay yiraahdo sheekh dira dhabe ka hadal adba ka hadal anu ma afayaan ka ganahay anu afhayaanka islaamka oo dhan maan dira dhabe waan u hadli hargeysana waan u hadli boorabana waan u hadli حمر وانو هاللي كسمايا وانو هاللي جيبوتي وانو هاللي وحانو هاللي السودان بانو هاللي مصر بانو هاللي لكن أين أنتم؟ هل قبتين؟ هل سميسين؟ مركز دير دبي وحا لقوة دا وحا استيطان باكون علي ولا قاتي دير دبي وسيدة جريزالين قدس لو قاتي سيدة لو قاتي مارتي الضفة الغربية سو لو قاتني ولا قاتنا يا دير دبي شيخ حسن ده هي شيخ بور من جوا إلهي مارته عمي صبرك إيه وحنا هذا كلمة ريبورمو ها والله لقى قادم بورم سيدي درد بلاقات دوك ما فهمت بورم ولا قادني سيدي درد بلاقات هي ضد با صوص صعد الزحف بان وصل صعدا وانا لقى قادني درد به وقاس حسن مركو حكم يجري صومالي ما اسكلاهي ما الذي غير المعالم يا بدل المعالم تجارة يلا ضدك وحي الربان إن ضدك إن تاريخنا كبحنا معها ورقفكو حق له مطلب حق يصدربني لقى ما قادن كرين أدو ضد كلا حقه قادنين ورمها إرينين سومالي كلا ضد كلا إرينين ولا أنا وحنا كيا ورمحاك واجب الصومالي ده ديرنا عليه صومالي ده قبل كصومالي ده صدق شيء بكون كو إن عز يا كرامكم نور هذا ورسك تاجر وحتى هذه الصومالي بانها مسلم بانها جيسي بانها سوم جيستانهاي مبقانهاي معبسطانهاي مارت اللباح بانهاي شبيل بانهاي دعوميه هكذا اولا كو لبا waxaan u baahannahay inay yiraahdaan hadiina la ihtirami waayo waan go'aynaa Soomaali baanahay dabada waxaan ku haynaa haga dambe Soomaali weyn cid lama fadhino min Djibouti ila Kismaayo dad yar manihin waa inay yiraahdaan labo صدح أنا صدحات وإن إليه شيان أورمو لا بد من ذلك أورمو ما هذا العادية أورمو وعمق إثيوبيا ويا أورمو ودبر إثيوبيا ويا عن فرق الصومالي بوحكوا واجبة إن بدن أي هشيس لقلان أورمو ما كبح خير الله كسي شيخيجي وسوق بقبيننا بإذن الله الكريم أنت قدام بيساوي حكاوي الدين لها أو Soomaalida iyo canfarta wareerkan la dhex dhigayo ama qorshahan la raba in la isku diro iyaga si la isugu mashquuliyo arinta sheekhaygii canfarta aqoonyahan bay leedahay culum ay leedahay dad waaweyn bay leeyihiin runtii Soomaalidu sidaas leeg meeshana way wada degan yihiin oo dad wada degan oo ma kala tagayaan ilaahay baa dejiyay dhulka oo de weligood bay ku noolaanayaan khitaabkan waanu iman doonaa oo dabcan wuxuu soo gali doonaa xalaqada kale aan khitaabka islaamiga kaga hadlayno annagu sheekhaygii marka aan dhulka degannahay sideedaba wada noolaashaha iyo ummaddu in ay meel wada degaan ay wada noolaadaan eeg maanta reer galbeedku dee waa ummad kala duwan haddana wada degan eeg maraykan kanada hadda joogtaa sheekhaygii dee way ballaaran tahay maraykanka waa ka intuu leegay waad aragtay yacna goormaan ka kobcaynaa anu su-aashan isweydiinayo goormaan ka kobcaynaa inaan idhaahdo intan yar anaa leh intan yar aniga keliga iyay xidhan tahay aniga unbaa ku noolaan kara cid kale ima soo gali karto goormay heli karaan dadku inay ka kobcaan oo waxa la qaybsanaya ee la rabo in la wadaago loo arkaa in ay tahay sarwada dhex taalla si cadaalada say ugu helaan cadaala ijtimaaciya yani tafadal mashkuura sheekhay اوكي سؤال باه إذا نفترض أنا حلقة الله سمع ما لنا بوبانتها ما قلتها سدي الله وضع النولا يلا محاضرة ما برنامج شوي وين لكن سؤال شو وين
كونفلي بقى واحنا كونفلي راجت نزاعات حدوديه صح ما هو wax Soomaali canfar u gaara dadku waxay isaan inay canfar iyo Soomaali u gaartahay amba Soomaali Oromo u gaartahay amba Soomaalida dhexdeedaba reeraha inay maaha konfliga Afrika oo dhan buu ka jiraa xuduudaha oo dhan buu ka jiraa maxaa yeelay dadku waxay isku diidaan dhulka iyo waxay isku diidaan daaqa iyo ceelka markay yihiin qabaayil marka arintaasi waa muhiim imikana waxa ku bir konfliga laba safarado siyaasad baa ku beertay waxa la yiraahdo gobolaatiin gobolkii canfarta gobolkii Soomaalida okay أنا دوكن دجنان جري أنا اللي يريحي أنا اللي يقصر ريحي أنا كريحي أنا ما عرفت أنا اللي هنجري أصل وحا كونفلي بقى كونفليجا وحا اللي يصير له حليه كونفليجا وحا له حليه صدح إلى أفر سيستم وما أنت كشكين دونه عن قلي دونه لكن أنا واحد أمثل حي شعبي الصومالي دو وشعبي وين أو مهمة شعبي عنفرتنا وشعبي وين أو مهمة waxa kulansiinaya canfarta iyo Soomaalida ka badan waxa isku diraya laba shay waa muhiim canfar iyo Soomaali waa wada muslimiin laba canfar iyo Soomaalina waa wada dad isku asala oo meel qura ka yimid waa laba shay waxa kale oo midaynaya waa isku dan annagu hageen deganahay sabab isku deganahay Djibouti ka soo bilow ilaa Ethiopia la tagay Eritrea sabab isku ag fadhinaa waxaan nahay isku masiir dariiqan weyn ee qalaafi ka soo baxa ee saa dhulka canfarta inta badan maraya Soomaalidana in buu ka dhaxmaraa haddana waan wada leenahay meesha baan deganahay dariiqa dawalla ka soo baxaya ee galiile ka soo baxaya ee dir dhaba tagaya ee ilaa yaad sabab tagaya Soomaali buu dhaxmaraya labadeennaba Ilaahay wuxuu ina dejiyay hungurigii Ethiopia annaka nooleyn karna haddaan Soomaali nahay iyo haddaan canfar nahay annaka nagaaji ku diri karna meesha aan fadhino waa istiraatiiji weeyaan waxaas oo dhani inuu wuxuu doonayaa inuu Soomaalida iyo canfarta miday laakiin Soomaaliya iyo canfar laba shay baa yaa isku diraysa waxa isku diraya quwadaha ka damba fadhiya oo dan leh oo tikreeg ugu horeeyo isaga shaqeynaya shaqo aan caadi ahayn laba waxa shaqeynaya siyaasiyiin ku nool inay labadan isdiriraan ku gaarayo ujeedooyinkooda siyaasiyiinta waxay joogi karaan Djibouti waxay joogi karaan Ethiopia waxay joogi karaan dibadaha ay joogi karaan siyaasiyiinta ma noolaan karaan haddii aana una jirin rabash dad baa jira horumarka ku gaadha rabashka laakiin aan ku gaadhin nabadda marka labada qolo waa run Soomaaliduna waxay leedahay aqooyahan iyo culumo iyo waxay leedahay siyaasiyiin fiican canfartuna waxay leedahay culumo iyo aqooyahan iyo siyaasiyiin fiican inaan isku keenno oo ay wada fadhiistaan caqligeena aad bay u jirtaa waana corona iyo waxa naga soo galay waa la qaban doonaa fariinta waan u kala diray inay shiraan ay isku yimaadaan ودنتودا اي قرطان ان شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا شيخ ادي بعض ما حسنتي بارك الله فيك waxaan rajaynayaa xalqadeeni maanta intaas inay noogu egtahay maadaama hawl kalena ay ina sugayso waxaan xasuusinayaa mar kale dadka maxaan ku dhadayay caalamka ku nool ee Soomaaliyeed aad baad u mahadsantihiin bارك الله فيكم iyo reer Djibouti waxaan hadda gali doonaa dabcan tabarucaadkii dadka reer Djibouti wax loogu taragayay ee ku tabaaloobay maxaan ku dhadayay roobabkii dhacay aad baad u mahadsantihiin sheekh aad baan ugu mahadinaynaa iyo Soomaaliya dabcan aad baan ugu mahadinaynaa sheekheena walaalaha dadaalaya ee iyaguna intaas ummadda isku keenaya ee fahansiinaya ee wax u fudaydinayana ilaahay waxaan uga baryayaa miisaan xasanaatihim Allah uga dhigo waa idin ballan qaadaynaa mar kale aad waxaan ugu mahadinayaa maaragtay sharwac technician barakaysan oo noo suura galiyay ilaahay ka sugo subxaanahu wa ta'aala aniga sheekhu inaan halkan isku wareysano dhammaantiin saad noo daawateen waad mahadsantihiin maqdacan sii sheer garaya insha allahu ta'aala hana hilmaamina live-ka aan soo gali doono kabacdi walaalaha aan la soo gali doono si aan isku gargaarno aad baan idin salaamaya aad baad u mahadsantihiin hameen dambe anigii hibaa soo gali doona live arrintii qoyskan ka hadli doonaa waan idin salaamaynaa jazaakum allahu khayran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.